wax soo saarka beeruhu waa furaha laga gudbo faqriga iyo gaajada waana albaabada horumarka xukuumadda maanta ee Soomaaliland fikradaha abuurista wax soo saar maxalliya waa tiirarka dhaxal ee loo aayi doono la dagaalanka musuqmaasuqa waa astaamaha dawlad wanaagga waana olaahyada ay xukuumadda mudane Muuse Biixi ka dhigatay halkudhigyada kobaca dhaqaalaha waa hiyiga Soomaaliland doonayso inay horumar ku gaarsiiso ummadeeda aqoontu waa iftiinka nolosha waxaana ay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn ee Soomaaliland ay salka hoose ka soo dhistay biyaha macdanta xoolaha kalluunka waa qaniimadaha ee bayna siiyay qarankuna uu ka meel dhalinayo wadooyinka garoomada diyaaradaha dekedaha iyo kaabayaasha kale dhaqaaluhu waa ahdaafta xukuumadda ay mudnaanta sare siisay hantida Soomaaliland ay wada leedahay ilaashata waa nabadda dimuqraadiyadda iyo wax wada lahaanshaha inta iyo in kale oo ka badanba waxaad ku maqli doontaan filimkan oo ka hadlaya waxqabadkii sanadkii koowaad ee xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ee ku soo dhawaada madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa hogaaminta dalka loo dhaariyay 13 Diseembar 2017 markaas oo ku beegnayd bil kadib markii Soomaaliland ay si hufan ugu qabtoontay doorashadii madaxtooyada ee saddexaad waxa taariikhda u gashay Soomaaliland in xafladii caleemasaarka madaxweynaha cusub ay kulmisay 3 madaxweyne oo si dimuqraadi loo wada doortay oo xilalka u kala dambeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu isla markiiba soo dhisay maalin kadib xafladda caleemasaarka golihiisa wasiirada oo kooban waxaana madaxweynuhu isugu yeeray wasiirada cusub kulan wada tashi oo 4 maalmood socday talaabadaasi waxay ahayd mid muujinaysa hanaanka maamul wanaag ee madaxweynuhu iridaha u furay iyadoo kulankani xambaarsanaa laba ujeedo oo ku kala suntan isbarashada xubnaha cusub iyo qorshaha xukuumadda ee sanadka koowaad madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu safar ku kala bixiyay muddadii uu xilka hayay wadamada ay lujaarka lahay iyo kuwa kale ee saaxiibtinimada laga dhaxayso qaar kamid ah gaar ahaan waxa uu cagta soo mariyay wadamada Djibouti, Ethiopia iyo Isutaga Imaaraadka Carabta halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay waxa safaradaasi madaxweynuhu ay guul weyn u soo hooyeen ummadda reer Soomaaliland intii madaxweynuhu ku guda jiray safaradaas dibadda waxa uu la kulmay madaxda ugu sarsanaysa dalalkaas kuwaas oo ay ka wada hadleen arrimo muhiim oo ay ku jiraan Soomaaliland iyo xiriirka dalalkaas iyo sidii la isaga kaashan lahaa arrimaha dhaqaalaha ganacsiga iyo amniga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu safar shaqo ku tagay gobolada Awdal, Gabiley, Saaxil, Togdheer, Oodweyne, Saraar, Sool iyo Sanaag madaxweynuhu waxa uu muddadii uu halka marayay uu kulamo balbalaaran la yeeshay bulshada noocyadeeda kala duwan fagaarayaasha ayuu kala hadlayay dadweynaha waxaana uu ku dhex marayay magaalooyinka iyo wadooyinka gobolada uu tagay taasi oo aad u farxad gelisay shacabka reer Soomaaliland madaxweynuhu waxa uu kulamo ku qaabilay xafiiskiisa mas'uuliyiin booqasho ku yimid dalka kuwaas oo isugu jiray wasiiro safiiro iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka socda wadamada ay Soomaaliland xiriirka dhow leeyihiin iyo qaramada midoobay madaxweynuhu wuxuu si joogto ah uga qayb galayay muddadii uu xilka hayay kulamada ay dhalinyaradu isugu timaado qalinjabinaha jaamacadaha maalintii dhalinyarada Soomaaliland iyo kulamo kale oo muhiim ah isagoo dhalinyarada mar walba u gudbinayay fariimo ku saabsan sida loogu baahan yahay in ay horumarka dalkooda hormuud ka madaxweynuhu waxa qasriga madaxtooyada kulamo dhiirigelin uu kula qaatay dhalinyaro hal abuura oo hindisay fikrado ganacsi iyo dhalinyaro quraanka kariimka ah xafiday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka qayb galay shirar waaweyn oo muhiim ah kuwaas oo ay ka mid yihiin shirweynihii lagu gorfeynayay guulihii Soomaaliland muddadii ay jirtay iyo shirweynihii dhaqdhaqaaqa haweenka madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa booqasho taariikhda baal weyn ka gashay waxa uu ku tagay dalka Sacuudi Arabia ay walaalahay safarkaasi oo bog cusub u furay xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Sacuudi Arabia madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxa uu la kulmay mudanayaal ka tirsan labada aqal ee looga arrimiyo dalka Ingiriiska mar uu booqday isaga iyo wafdiga uu hogaaminaya dalkaasi wafdiga madaxweyne ku-xigeenka oo si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasi waxa kulamada dhex maray mudanayaasha labada aqal ee Ingiriiska oo ka dhacay xarunta baarlamaanka dalkaasi ay kaga wada hadleen xiriirka labada wadan ee soo jireenka ah iyo qodobo kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Saylici iyo wafdiga uu hogaaminaya waxay xarunta midowga Yurub ee dalka Belgium ay kulamo kula yeesheen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka midowga Yurub
wafdigan waxaa halkaa loogu soo dhoweeyey si weyn. mudane madaxweyne waxaa salaantaada u diyaara cutub ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida tukarraq. mudane madaxweyne ku soo dhawow. xukuumadda oo ay hormood ka tahay wasaaradda gaashaandhigu waxay qaaday tallaabooyin lagu fidinayo sugidda xuduudaha Soomaaliland. muddadii uu madaxweyne muuse biixi cabdi xilka waddanka hayay waxaa si weyn looga howlgalay meelmarinta qadiyadda Soomaaliland iyada oo indhaha caalamka lagu soo jeediyey Soomaaliland. muddadaasi waxaa la abaabulay kooxo ka tirsan baarlamaanada Ingiriiska iyo Uganda kuwaasoo u doodi doona ixtiraaf raalinta Soomaaliland. Well, I'd like the British government to take the lead at the UN to actually accept Somaliland as a country in its own right, to give it its own national identity. door hormuud ka qaadataa sidii ay qaramada midoobay Somaliland ugu aqoonsan lahaayeen dal jira oo ayishiisa ka tashada. Buqaadda ay Somaliland ku taala waxay muhiim u tahay kobcinta dhaqaalaha geeska Afrika iyo caalamka, waana mid u baahan in laga faa'iideysto. madaxda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa ay safaro diblomaasiyadeed ku tageen muddadaasi dalalka Djibouti, Ethiopia, Imaaraadka Carabta, Ingiriiska, Kenya, Ghana, Senegal, Nigeria, Mauritania iyo Belgium oo ay dhammaan kaga dhaadhiciyeen qadiyadda Soomaaliland horena ugu soo mariyeen cilaaqaadkii Soomaaliland iyo wadamadaasi ay lahaayeen. safaradaasi kadib waxaa dalka booqasho ku yimi 40 wafdi oo kala duwan oo isugu jira diblomaasiyiin iyo maalgashadayaal caalami ah kuwaas oo ay hogaaminayeen wasiiro, safiiro, wakiilo iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay laamaha hoos yimaada dalalka Yurub, Jaamacadda Carabta, IGAD iyo maalgashadayaal caalamiya. dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Kenya waxa muddadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu xilka hayay ay xafiisyada Soomaaliland ku leedahay dalkooda u aqoonsadeen inay yihiin wakiilo buuxa. muddadaasi 511 goor ayay saxaafadda caalamku wax ka qortay xaaladda Soomaaliland. xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay tacab iyo dadaal badan gelisay xalinta isku dhacyadii beelaha ee deegaanada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag oo marar badan soo noqnoqday. waxaana madaxweynaha Soomaaliland oo abaabulay ergooyin nabadeed oo arrinta ka howlgala sida culimaadudiinka caanka ee dalka, aqoon-yahano iyo xeerbeegti. ergada uu horkacayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxaa sidoo kale xubna ka ahaa madaxweyne ku-xigeenadii hore ee Soomaaliland soo maray waxgarad iyo shakhsiyaad miisaan ku leh bulshada dhexdeeda, waxayna muddo bila kala dhex fadhiyeen dhinacyadii ay dhibaatadu dhex martay magaalada Ceelaf Weyn ilaa ugu dambeyntiina ay ka gaadheen natiijo wax ku ool ah go'aamana ka soo saareen. idinkaa wada dhashay, idinkaa wiil iyo abtigiya, idinkaa kala tegeen ilma adeerayaal, abtiyaal, habar wadaagayaal. maanta go'aanka aanu halkan isugu nimi ee guddigaas la xaadiriyay ee Sheekh Cali Jawhar uu chairmanka u yahay waxa weeye sidii aynu ahaan jirnay hal lagu soo celiyo oo hana maqlo. waxaan beelaha u soo jeedinayaa walaalaha iyo u garnaqaynay oo arrintoodii soo gabagabowday inay go'aankaasi ku qancaan. waa go'aan ummadi ay gaadhay, ma aha wax inta iyaduna aan gaadhnay maaha, ummadda kalena gudaha iyo dibadba wayna la gaadhin. go'aamadan oo si weyn loogaga farxay Sanaag, Ceelaf Weyn iyo guud ahaan Soomaaliland oo dhan waxa farxadaasi inta ay leegtahay muujiyay madax dhaqameedkii iyo hogaamiyaashii gobolkaasi oo markii gabcaha isqabsaday iyaga oo faraxsan. hadday hawl qarani socon hadda wax waliba hagaagaya hadday hooyadii maqsuud tahay hadda hooyigii heshiis yahay. wasaaradda xukuumadda u qaabilsan arrimaha guduhu waxa ay si mugle uga howlgashay nabadaynta deegaanadii kale ee ay xiisadaha amni darro ka dhaceen sida koonfurta gobolka Sool, degmada Jiidale oo ka tirsan gobolka Sanaag, Caynaba iyo deegaano hoos yimaada gobolka Buuhoodle. badankoodana goobahaasi waxa laga gaaray heshiisyo nabadgelyo oo wax ku ool ah. insha Allah ta'ala waxaanu halkan ka jeedinaa go'aamadii maxkamadda shareecada ee loo qabtay labada beelood ee Bahar Sameey Khayr Cabdi. waxay la tahay go'aankayagii sheekhu waa sheeg waana qaadanay waxa weeye go'aanada haday madax dhaqameed tahay, haday maxkamad tahay, haday maamulka toona waanu qaadanay. muddadii ay tirtay xukuumadda ka soo adkeynta amniga gudaha iyo horumarinta hay'adaha nabadgelyada ku shaqada leh waxay gobolada iyo degmooyinka dalka dhigtay nidaamka diiwaangelinta muwaadinka kaas oo haatan laga heli karo 14 degmo doorasho oo dalka ah.
muddadii uu madaxweyne muuse biixi cabdi talada waddanka hayay waxa uu ku dadaalay in doorashooyinka baarlamaanka iyo dowladaha hoose ay xilligoodii ku qabsoomaan iyo in xisbiyada iyo dowladdu isku aragti ka noqdaan amuurtaasi iyadoo kulamo badan uu qabtay guddoonka sare ee xisbiyada mucaaradka. madaxweynuhu waxa uu bixiyey qayb ka mid ah qoondadii dowladda kaga soo hagaagtay khashiyaadka ku baxaya doorashooyinka, islamarkaana waxaa la sameeyey xeerka doorashooyinka oo ay ansixiyeen golaha wasiiradu oo loo gudbiyey golaha wakiilada. uu go'aamiyey kootada gaarka ah ee haweenka iyo dadka la haybsooco, taasi kor u qaadaysa heerka dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland. sarreynta sharciga iyo ku dhaqanka dastuurka qaranku waxay halbowle iyo halkudhigba u ahaayeen ololihii xisbiga kulmiye uu ku galay doorashadii madaxtinimada ee uu ku guulaystay sanad ka hor mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. saas daradeed waxa uu magacaabay madaxweynuhu wasaaradda xiriirka golayaasha oo uu ku kordhiyey qaybta arrimaha dastuurka qaranka. mas-uuliyiinta wasaaradda xidhiirka golayaashu iyaga oo fulinaya waajibaadkaasi waxay socdaal ku soo mareen gobollada dalka si loogu faafiyo barnaamijyo wacyigelineed oo la xidhiidha barashada dastuurka qaranka oo ah kan ay dhammaan shuruucda aynu ku shaqayno oo dhammi ay ka faracmaan. gobolladaasi waxaa la gaadhsiiyey nuqullo dastuurka ah oo loo qaybiyey dadka iyadoo islamarkaana xafiisyo ay wasaaraddu ka furatay 5 gobol oo ka mid ah gobollada Soomaaliland. waa markii koowaad tallaabo lagu faafinayo dastuurka la qaado tan iyo markii loo codeeyey. nuxurka iyo ujeeddada ka dambaysa hawshan waxay tahay in muwaadinka dastuurku ka dhex helo xuquuqdiisa asaasiga ah iyo waajibaadka isaga laga rabo. taasina waxay keenaysaa in bulshada oo dhammi sharciga ay ku dhaqanto. xafiiska garyaqaanka guud ee Soomaaliland oo ka wakiila xukuumadda Soomaaliland waxa uu ka howlgalay sanadkan adeega diyaarinta qabyo qoraalada xeerarka ay xukuumaddu bilowday, daabacaadda iyo baahinta xeerarka ee faafinta rasmiga ah gelaya, iyadoo nuqullada la daabacayna ay dhan yihiin 2855 nuqul. sanadkan waxaa la diyaariyey xeer nidaamyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay-adaha xukuumadda, wax kabeddelka iyo kaabista xeerka hay-adda duulista madaniga iyo wax kabeddelka xeerka doorashooyinka guud, diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo 14 xeer oo kale oo dhammaantood wax kabeddel lagu sameeyey. waxaa hantidhowrka guud ee qaranku uu baadhis dukumenti ku sameeyey xarumo ka tirsan kuwa dowladda iyo xarumaha dowladaha hoose ee dalka. baadhistaasi ayaa isugu jirtay sixidda qaab xisaabeedyada hay-adahaasi iyo baadhis maamul. wasaaradda howlaha guud waxay diiwaan gelisay hantida maguurtada ee dowladda, waxaana hawshaas ka howlgalay 85 injineer oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaasoo soo maray dhammaan gobollada dalka. tirakoobka waxaa lagu diiwaangeliyey xarumaha caafimaadka, waxbarashada, garoomada ciyaaraha, kuwa diyaaradaha, guryaha dowladda, dhismayaasha dowladaha hoose iyo hantida kale ee dowladdu leedahay. wasaaradda howlaha guud waxay qorshe magaalo master plan u samaysay magaalooyinka waaweyn ee dalka. haatanna waxaa gacanta lagu hayaa magaalada Laascaanood. sidoo kalena waxay dib u habayn qorshe ku samaysay magaalada Wajaale iyo Qorilugud oo ay si fiican u dhamaystirtay. xukuumadda Soomaaliland waxa ay sanad ka fulisay dayactir ay ku samaysay xarumaha ay hay'adaha dawladdu ku shaqeeyaan. waxa la socday dabagal lagu sameeyay hirgelinta dhismayaasha dawladda inaan laga bedelin sidii loogu talagalay. sida sharcigu dhigaya waxa ay qiimeynta iyo naqshadaynta dhismayaasha dawladda xukuumaddu mar walba u gudbisaa guddiga qandaraasyada qaranka, kuwaasi oo madax bannaan ugu bandhiga qandaraaslayaasha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ku tartama. 20 sano qandaraas ku soo jirnayo kulli waa markii koowaad ee aanu aad u aragno inay cadaalad lagu kala saarayo shirkadaha soo codsada. guddida qandaraasyadu procedure-ka ay mareen waa procedure-kii ay mari jireen hay'adaha caalamiga. dadkana waxa deeqda cadaalad. taniga intii Soomaaliland jirtay marnaba suurtagal ma noqon in tiro sax laga helo xaqiiqada shaqaalaha dawladda. muddadii xukuumaddan tirada gacanta ku haysay waxay suurtagelisay tirakoobkii madax taabasho ee shaqaalaha dawladda lagu tirakoobayay. tirakoobkaasi waxaa ka soo baxay tiro saxa oo iminka si rasmiya ugu saldhigtay diiwaanka mushahar bixinta qaranka. mashruucan waxaa daafuray madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan madaxda hay'adaha shaqada iyo shaqaalaha. waxaa tirada markii hore ku xaadiri jirtay diiwaanka mushaharka ee dawladdu ay ahayd 16530 qof. waxaase howlgalkani meesha ka saaray tiro dhan 2476 ruux oo aan ka soo xaadirin goobtii diiwaangelinta.
waxaana tirada dhabta ah ee shaqaalaha dowladda ee iminka diiwaan gashan ay noqotay 14,750 qof. muddada xukuumaddani talada haysay waxaa si rasmiya loo shaqaalaysiiyey 954 macallin taasoo wax weyn ka tari doonta horumarinta tacliinta. geesta kale 300 oo fursadood oo shaqaalanimo waxay dowladdu si siman ugu qaybisay dhammaan gobollada Somaliland oo dhan. gobol kastaana imtixaanka xubnahaasi si gaara ayuu galayaa. madaxweynuhu waxa uu go'aamiyey in 30% hablaha gaar looga dhigo fursadahan taasoo noqon doonta mid joogto ah. madaxweyne muuse biixi cabdi isagoo ka duulaya ballanqaadkiisii shaqo abuurka ee dhinaca dhalinyarada waxa uu go'aamiyey meelmarinta barnaamijka shaqo qaran oo dufcaddii koowaad loo qoondeeyey 1,500 oo dhalinyaro ah oo muddo sanado la siinayo tababaro aqoon kordhin isbarasho dalbarasho iyo dadbarasho taasi oo loogu diyaarinayo sidii loo shaqo gelin lahaa. dufcadda koowaad ee barnaamijkan waxaa 5% loo qoondeeyey dadka naafada ah iyadoo 30% loogu talagalay hablaha taasi oo muujinaysa ahmiyadda uu madaxweynaha iyo xukuumaddiisu siinayaan horumarinta haweenka. horumarinta adeegyada caafimaadku waxa uu tirarka ugu waaweyn ka yahay barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye ku galay doorashada. sidaas darteed sanadkan koowaad ee 2018 ay xilka haysay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa laga shaqaysiiyey qalab caafimaad oo ku cusub dalkeenna oo casri ah kaasoo lagu baadho cudurka qaaxada iyo in bakteeriyadu adkaysi u leedahay daawooyinka. sidoo kale waxay xukuumaddu dib u furtay kana shaqaysiisay 39 xarumo caafimaad oo ku kala yaalay gobollada dalka. madaxweynuhu waxa uu dhagax dhigay waadh cusub oo lagu kordhinayo cusbitaalka magaalada Hargeysa warkaasi oo noqon doona mid loogu talagalay dhalmada. xukuumaddu waxa ay ka hirgelisay cusbitaalka Burco mishiinada lagu sifeeyay kaliyaha. mishiinadani waxaa ku badhaaday dadkii qabay kaliya xanuunka ee gobolada bari oo ka raystay safarkii Hargeysa. sidoo kalena mishiinada oksijiintu waxa ay badbaadiyeen dad badan markii alla lala kaashaday oo mishiinadaasi dartood u dhiman jiray iyo kuwa loo isticmaalo hawada oksijiinta. qalabka kaliyaha safeeya mishiinka la keenay gobolada bariga ee Burco soo dejiyay aad baan soo dhaweynaa dadweynaha ku nool gobolka Togdheer. maadaama Hargeysa ama Koonfur Afrika Kenya dhul loo qaban jiray aad iyo aad baan dawladda iyo qaranka baan ugu mahadnaqnaa maadaama ay noo keentay gobolka Togdheer Burco cusbitaalkiisii qalabkii kaliya. waxaa cusbitaalka magaalada Berbera lagu guuleystay in uu noqdo cusbitaalka kaliya ee laga hirgeliyey nidaam elektrooniga oo isku xidhaya qaybaha cusbitaalkaasi. habkaasi oo lagu faafin doono cusbitaalada waaweyn ee dalkan Jamhuuriyadda Somaliland. cusbitaalka magaalada Laascaanood waxaa lagu kordhiyay dhismayaal cusub oo hadda gabagabo ku dhow iyadoo wasaaradda caafimaadku cusbitaalka u shaqaalaysiiyeen 3 dhakhtar oo ajaanib ah oo takhasusyo kala duwan leh waxaana kor u qaadi doonaan adeegyada cusbitaalku fidinayo isla markaana waxay tababari doonaan shaqaalaha cusbitaalka. waxa kale oo la gaarsiiyay cusbitaalka Laascaanood daawooyin badan oo loogu talagalay bulshada gobolka Sool. cusbitaalka guud ee Ceerigaabo waxay xukuumaddu ku dartay qaybo muhiim ah sida waadhka bukaan socodka, OT, waadhka carruurta, gargaarka degdega ah iyo tiyaatarka qaliinka. dhammaanba dhismayaashaasi waxaa xadhigga ka jaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaa gobolka Sanaag la gaarsiiyey kaydkii dawo ee ugu ballaadhnaa ee gobol la geeyo. sanadkan waxaa xukuumadda oo kaashanaysa bulshada Somaliland la hirgeliyay dhismayaal isugu jira kuwa cusub, kuwa la kordhiyey iyo kuwa loo sameeyay xayndaab oo ka kooban 29 xarumo dugsi oo ku kala yaala gobolada Awdal, Maroodi Jeex, Sool, Sanaag iyo Gabiley. waxaa kaloo la dayactiray dhismayaashii dugsiyadii duugoobay iyo dugsiyadii ay waxyeelaysay duufaantii Sagar kuwaasoo ku kala yaalay degmooyinka Lughaya, Baki, Bulxaar, Caynaba, Berbera iyo Salaxley. 120 dhalinyaro ah oo ka mid ah da'yarta aan fursada u helin waxbarashada tooska ah ayaa la baray sanadkan 2018 xirfadood oo u badan farsamada gacanta taasi oo 75% ay ku shaqeeyaan xirfadihii la baray. tayada waxbarashada waxaa qayb weyn ka qaadataa agabka waxbarashada ee ardaygu helo. si taasi loo amba qaadana waxaa sanadkan xukuumaddu ay iibisay buugaagta daabacan ee dugsiyada hoose iyo dhexe oo tiradoodu ay dhan tahay 1,090,000 buug. buugaagtaasi ardaydu waxa ay ku helayaan lacag la'aan. sidoo kale waxay xukuumaddu qorshaysay in ay sanadka dambena iibiso buugaagta daabacan ee ardayda dugsiyada sare. waxay dowladdu waxbarasho dibadeed u dirtay 382 arday kuwaasi oo ay ka bixisay dhammaan kharashka waxbarashadaasi oo ah heerka koowaad iyo heerka labaad ee jaamacadaha. ardaydaasi waxay ka kala yimaadeen dhammaan gobolada Somaliland.
sidii gobollada dalka biyo ballaarin loogu samayn lahaa xukuumaddu waxay iyadoo fulinaysa ballanqaadyadeedii 27 ceel oo ah kuwa dhaadheer ka qoday 6 gobol ee waaweyn ee dalka halka ay dayactir ku samaysay 34 ceel oo ku kala yaalay gobolladaasi maadaama uu ceelkii maanta uu noo shaqaynayo horena wax looga qabto haddeer rabo laga qabto oo noo ka bedelay bombadii haddaanu nahay wadaasha jiidaliyeed waa u mahadnaqaynaa waxaa madaxweynuhu xadhigga ka jaray 2 ceel oo riiga oo laga kala sameeyey Caynaba iyo Samakaab. xukuumaddu waxay qorshaysay in biyo ballaarin iyo biyogelinba lagu sameeyo Laascaanood iyo Oodweyne oo xaalad biyo-yaraanhi ay ka jirtay sidoo kalena xukuumaddu waxay ku guuleysatay dhamaystirka biyaha Wajaale waana mashruucii ugu dambeeyay ee dhinaca biyaha laga sameeyay. mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa oo socday sanadihii la soo dhaafay waxa uu imika maraya heer gabagaba ah dhuumaha biyaha ka qaadaya xarunta geed deeble oo dhumucdoodu ay yihiin 600 oo millimeter lana soo dhigay 23 kilomitir hawshaasi waxay imika la dhameystiray 8% dhuumaha biyaha qaadayna waxa la soo xadhiga fiber optic oo lagu ogaan karo ciladaha soo fool yeesha. sidoo kalena waxa qaybinta biyaha ee magaalada Hargeysa gudaheeda laga sameeyay barkado leh kayd biyood oo gaaraya ilaa 900 oo mitir kuubik oo biyo iyadoo la fulinayo siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan kubcinta muruqa iyo maskaxda dhalinyarada gaar ahaan dhinaca ciyaaraha ayaa sanadkan waxa xadhiga laga jaray garoonka kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud ee Cabdi Bilay Stadium ee magaalada Laascaanood. xukuumaddu waxay roogaga cagaaran ee dhinaca ciyaaraha dhigtay garoomada magaalooyinka Berbera iyo Burco. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dhagax dhigay garoomo ciyaareed oo cusub kuwaas oo laga dhisayo magaalooyinka Sheekh iyo Caynaba. sanadkan waxaa Hargeysa ka furmay tartanka FA Cup-ka oo markii uu horeysay lagu qabtay dalka Soomaaliland. tartanka waxaa ka qayb galay 29 kooxood oo iskugu jira kooxaha heerka koowaad, heerka labaad iyo sidoo kale heerka saddexaad ee gobolka Maroodijeex. tartamada orodada ee kala duwan ayay qaban qaabisay xukuumaddu sanadkan gudihiisa. tartamadaas waxaa ka mid ah tartanka orodka degmooyinka caasimadda Hargeysa, tartanka 5,000 mitir iyo 10,000 mitir ee magaalada Laascaanood. sidoo kale waxaa Hargeysa lagu qabtay tartanka maratoonka ee 42 kilomitir. waxaa markii u horeysay lagu qabtay magaalada Hargeysa tartanka kubadda tenniska tennis ball oo ay ku tartamayeen 16 ciyaaryahan oo ka kala socday gobolka Maroodijeex. tartankani oo ay soo qaban qaabiyeen xidhiidhka kubadda tenniska ee Soomaaliland oo kaashanaya wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ayaa ka qabsoomay magaalada Hargeysa. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa abuuray sanduuqa horumarinta dhalinyarada isla markaana u furay sanduuq xisaabeed u gaara. waxaa madaxweynuhu sanduuqa dhalinyarada ku shubay lacag dhan 2 bilyan oo shilinka Soomaaliland una dhiganta 200 oo kun oo dollar. sanduuqan ayaa noqon doona mid lagu ururiyo dhammaan dhaqaalaha ku baxaya horumarinta dhalinyarada Soomaaliland. wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland waa tiir ka mid ah tiirarka qaab dhismeedka dawladnimo. waana hay'adda hadal qoraal iyo muuqaalba ku difaacda jiritaanka qarannimo iyada oo bulshadana u gudbisa wacyigelinta lagama maarmaanka ah ee kana shaqaysa horumarinta suugaanta iyo dhiirigelinta hal abuurka fanka iyo ciyaaraha wadaniga ah. xukuumadda Soomaaliland oo ku dhaqmaysa ogolaanshaha xoriyadul qowlka ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhigayo waxay muddadii sanadka ahayd ee u dambeysay awoodda sii saartay kor u qaadista madaxbannaanida saxaafadda gaarka loo leeyahay iyadoo wasaaradda warfaafintuna si gaar ah dayactir iyo qalabaynba ku samaysay dhismayaasha wasaaradda si ay haybadeedu u muuqato. waxaa lagu guuleystay soo saaridda warsidaha Solna Bulletin warsidahan oo ku soo baxa luuqadaha Soomaaliga iyo Ingiriiska isla markaana geeyo xafiisyada dawladda. waxa la sameeyay website weyn oo lagu ururiyo wixii warar iyo warbixinaha ee Soomaaliland khuseeya kaasoo ah warfaafinta gsl.com. waxa markii koowaad la sameeyay xafiiska warisgaarsiinta qaranka kaasoo si casri ah loo qalabeeyay
waxaa ka mid ah ujeedooyinka xafiiskani loo aasaasay sidii xogta dowladda hal meel looga wada heli lahaa. xafiiskani waxa uu xidhiidhinaya dhammaan bahlaamaha dowladda kaasoo shaqadiisu socoto 24 saacadoodba. waxay wasaaraddu soo iibsatay idaacad cusub oo FM ah oo diyaar u ah in ay hawl gasho haddii ay ciladi ila soo diristo FM-yada hadda ka shaqeeya 6 gobol ee waaweyn. qabyatirka xidhka saxaafadda Somaliland oo gacanta lagu hayo marka uu dhamaadana loo gudbin doono golayaasha sharci dejinta si ay waajibaadkooda u gutaan. wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku iyadoo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada waxa ay hirgelisay tababaro xirfadeed oo ay qaateen 87 qof. wasaaradani waxay tirakoob ku samaysay shaqaalaha ajaanibka ah ee dalka ku sugan xaaladaha iyo diiwaangelinta darbijiifta iyadoo xarumo uga samaysay gobolada dalka. sidoo kale waxay wasaaraddu dib u eegis ku samaysay siyaasadda naafada qaranka, xeerka howlgabka iyo xeerka shaqaalaha rayidka ah. wasaaradda diinta iyo awqaafta oo fulinaysa siyaasadda xukuumadda waxay door dhaxaalda ka qaadatay nabadayntii shaqaaqadii ceelaf weyn waxayna isku dubaridday culimadii ka howlgashay daminta colaadaasi. xukuumaddu waxa ay diyaarisay qorshihii lagu diiwaangelin lahaa madaariska diiniga ah ee dalka iyadoo la sameeyey manhaj lagu dhaqayo madarasadaha qur-aanka. sidoo kalena waxaa aqoonsi iyo shahaado loo sameeyey xamladaha ka shaqeeya xajka iyo cumrada. xukuumaddu waxa ay dardargelisay barnaamijka maxaabiista jeelka oo la baray qur-aanka. xukuumadda Somaliland waxay dhammaystirtay dhismaha xabsiga dhexe ee magaalada Burco oo noqon doona xabsiga ugu weyn Somaliland. xabsigaasi waxa ku baxday lacag gaaraysa 1,600,000 oo dollar. waxa kale oo la bilaabay dhismaha xabsiga dhexe ee Boorama. xabsigaas oo isaguna lahaan doona dhammaan adeegyada kala duwan ee maxaabiista iyadoo sidoo kalena ballaadhinaya dayactir lagu wado xabsiga Gabiley oo lagu kordhinayo qaybo cusub. waxay sanadkan xukuumaddu ka fulisay barnaamijka afurinta maxaabiista ee la magac baxay maxbuus la afur madaxweynahaaga. mashruucaas waxay xukuumaddu ku bixisay 180,000 oo dollar waxaana ka faa'iideystay dhammaan maxaabiista jeelasha dalka. madaxweyne muuse biixi cabdi loogama warramin sida ay u dhacday iyo inta ay leeg tahay duufaantii Sagar iyo waxyeeladeedu. isaga ayaa gulmaday oo cadihiisa ku tagay oo idhihiisa soo saaray kadib la bixiyay amar guud oo qaranka oo dhan ku siinayo in degdeg gulmad loo galo. waxaana uu gacantiisa ku qaybiyey wixii kaalmaha ahayd markaa goobta yiilay. hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo raashinka kaydka qaranka ayaa markii u horeysay shaqo ka bilowday dalka waxayna kaalmooyin gaarsiisay dadkii ku waxyeeloobay duufaantii Sagar. sidoo kale waxay raashin u qaybisay 60,000 oo qoys oo ku kala nool gobolada Somaliland. hay-addu waxay mucaawinooyin gaarsiisay meelihii ay shaqaaqooyinku ka dhaceen ee ceelaf weyn, koonfurta gobolka Sool iyo Tukaraq. hay-adani waxay abuurtay hab kayd raashin loogu abuurayo qaranka waxaanay beertay dhul baaxadiisu ballaadhan tahay oo ay ka beertay dalagyo isugu jira hadhuudh iyo galley kuwaasi oo badiba soo go'ay. dhul beereedkani waxay hay-adani ka samaysay banka carasanka ah ee Wajaale. cabirka dhulka la beeray ayaa dherer ahaan gaadhaya 700 mitir halka ballac ahaana uu yahay 40 mitir iyo 600 mitir oo dherer ah iyo 40 mitir oo ballaca. xukuumadda maanta ee uu hogaaminayay madaxweyne muuse biixi cabdi waxay aasaastay hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha si loo kala sooco muwaadinka iyo qaxootiga isla markaana barakacayaasha loogu sameeyo goobo lagu quudiyo. hay-addan oo jirtay muddo 1 sano ah waxay 411 guri oo jingada u dhistay dadka barakacayaasha ee deegaanada Aadhe Cadeeye, Caynaba iyo Burco. sidoo kale waxaa faylasha lahaanshaha guryaha loo sameeyey 549 ka mid ah barakacayaasha Jimcaale, Ayax 1B iyo Ayax 4 oo ku yaala duleedka magaalada Hargeysa. hay-addu waxay lacag raashin siisay 2,975 qoys oo ah barakacayaasha degan Sool iyo Sanaag. waxaa qoyskiiba la siiyey $85 halka 11,590 qoys la siiyey raashinka noocyadiisa caadiga ah oo dhammaystiran. qoysaskaasi waxay kala yihiin barakacayaasha deegaanada Ballimataan, Salaxley, Saraar, Boon, Baki, Aadhe Cadeeye iyo Goori, ceelaf weyn iyo gar adag. hay-addu waxay sodataagi biyood siisay barakacayaasha Maxamed Muuge iyo Ballimataan. sidoo kalena waxaa 400 oo qoys oo barakacayaal oo Ballimataan ah la siiyey bacaha guryaha lagu dhisto iyo weel.
xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi iyadoo fulinaysa ballanqaadyadii lagu doortay oo ay ka mid ahaayeen horumarinta deegaanka ilaalinta duurjoogta iyo koruqaadidda nolosha reer guuraaga ayaa muddadii ay xilka haysay oo hadda ay buuxsantay hal sanno waxay ka howlgashay sidii loo maarayn lahaa loona ilaalin lahaa khayraadka dabiiciga ah oo ugaadhuna ay ka mid tahay madaxweynuhu waxa uu dhaqangeliyey xeerka ilaalinta deegaanka waxaa la qaaday ololo ballaaran oo ka dhana ka ganacsiga duurjoogta waxaana ololahaasi isugu jiray wacyigelin baahsan oo bulshada loogu sheegayo laguna fahamsiinayo inay ka hortagaan dadka dabar goynaya duurjoogta iyadoo sharciga la horgeeyey dad ay ku caddaatay ka ganacsiga duurjoogtu waxaa lagu xukumay midkiiba 3 sano oo xadhiga oo xadhig ciqaabeeda oo aan iib lahayn iyo min 3 milyan oo ganaaxa oo la socda midkiiba xukuumaddu waxa kale oo ay bilowday in la banneeyo dhuldaaqsimeed ku teedsan gobolka Maroodijeex meelo badan oo ka mid ah oo si sharci darro ah ay u ooteen dad ku sheegay in dhulkaasi uu beera yahay sidoo kale waxa ay qorshaysay wasaaradda deegaanku in laga howlgalo baabiinta dhulka ay seerayaasha sharci darrada ka ooteen dadku lana xakameeyo seerayaashaasi waxaa la qabtay tababaro ku saabsan ilaalinta iyo horumarinta deegaanka isticmaalka dhuxusha oo ah tan inta ugu badan keenta xaalufinta dhirta ayaa waxaa la qabtay tababar ku saabsanaa yaraynta dhuxusha wax lagu karsado oo ay qaadanayeen 30 qof oo ka kala socday gobollada Somaliland waxaana dadkaasi barteen farsamaynta iyo samaynta gargare loogu talagalay inuu bedelo kuwa dhuxusha badan lagu shido kaasi oo beeqaaminaya dhuxusha 30% markaasi kadibna la gaarsiinayo heerka beeqaaminta 50% gargarahaasi oo isticmaalkiisa lagu guuleystay waxyaan aad buu fiican yahay horta dhuxushii badnayd ee iga baxaysay ayaan ka raystay bishii waxaan isticmaali jiray 3 gabdadood imkana haaf baan isticmaala gabdada barkeedii intaan gargaraan 8 biloodan haystay aniga dhaqaalii dhuxushiga ka baxay oo iga yaraaday dhuxushii deegaankuna aad iyo aad bay waxaan kuuga raystaan dhirtii xukuumadda Somaliland waxay cashuur dhaaf 100% u samaysay soo dejinta gaasta wax lagu karsado dadii u dhaxaysay 15 Abriil ilaa 15 May 2018 ku hawlanayd qaybinta dhirtireedu dhan tahay 22319 geed taasoo loo isticmaalayo hadh ahaan midho ahaan calafka xoolaha iyo bilicda magaalooyinka waxaana la gaarsiiyey dadweynaha xarumaha dawladda iyo degmooyinka xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa ka go'an kobcinta iyo sare u qaadidda dhaqaalaha dalka wasaaradda maaliyadda ayaa awoodda saartay dardargelinta dakhliga dalka iyadoo kordhisay saacadihii shaqada oo laga dhigay labada gelinba si kor loogu qaado dakhliga waxaa kaloo kor u qaadis lagu sameeyay cashuurta badeecadaha faakaahaysiga loo isticmaalo ee aan daruuriga ahayn sida qaadka iyo gaadiidka iyo wixii la mid ah waxaa kale oo xukuumaddu ku guulaysatay samaynta xeerarka iyo siyaasadda maaliyadda iyadoo xukuumaddani ahmiyadda siisay tashiilka kharashaadka qaranka miisaaniyadda sanadkan 2018 ee ay xukuumaddu diyaarisay waxaa ku jiray 35 mashruuc oo ay ku baxday hanti u dhiganta 8% miisaaniyadda qaranka mashaariicdaasi oo ku wajahnaa waxbarashada caafimaadka wax soo saarka kaabayaasha dhaqaalaha biyaha xoojinta maamulka dawladnimo iyo shaqo abuurka dejinta siyaasadda qorsheynta qaranku waxay aasaas u tahay shaqo kasta oo la qabanayo waana shayga ay xukuumadda Somaliland furaha uga dhigtay dhammaan barnaamijyada horumarineed ee dalka laga hirgelinayo xukuumaddu waxay samaysay sidii beesha caalamku kor ugu qaadi lahayd deeqaha ay ku bixiyaan mashaariicda horumarinta waxaana la dhammaystiray wixii mashruuc ahaa ee arrintaasi u baahnayd muddadii xukuumaddani jirtay waxaa dalka soo gaadhay mucaawinaan dhan 110 milyan oo dollar oo loo qorsheeyey mashaariic kala duwan xukuumadda Somaliland oo ka duulaysa qorshaha maamul daadejinta iyo u sinaanshaha deeqaha iyo mashaariicda dalka waxa ay kooxo u kala dirtay gobolada dalka si loo hubiyo baahida dhabta ah ee deegaanada dalka
qorshahani wuxuu sahlayaa in si fudud maalgelin loogu helo qorshaha labaad ee horumarinta qaranka iyo in si fudud loo hirgeliyo hadba mashaariicda mudnaanta u leh dalka waxaana la sameeyey siyaasadda baahinta xogta qaranka data dissemination policy. xukuumaddu waxay awoodda saartay dhiirigelinta soo saarka khayraadka dalka iyo sidii loo yareyn lahaa waxyaalaha dibadda laga soo dejiyo iyadoo markii ay xilka la wareegtay ku dhaqaaqday sidii looga faa'iidaysan lahaa dhulbeereedka dalku leeyahay. waxaa markiiba la bilaabay beerista mashruuca banka wajaale oo sanadkani la beeray 3,172.5 saacadood oo u dhiganta 705 hektar oo isugu jira dalagyada kala duwan sida hadhuudhka, galeyda iyo digirta iyadoo xukuumaddu bixisay dhammaanba kharashaadkii ku baxayay isla mar ahaantaana dayactirtay cagafyada iyo gaadiidkii lagaga shaqaynayay mashruucani. bilowgii mashruucan waxaa daafuray madaxweyne ku-xigeenka Somaliland. xukuumaddu waxay bilowday oo kale mashruuca qodaalka xaaxi waxaa dalagyo lagu beeray dhul baaxadiisu dhan tahay 900 oo hektaar. waa mashruuc beereedkii ugu ballaadhnaa ee laga fuliyo gobolka Daadmareed waxaana xukuumaddu ku wareejisay 2 cagaf oo kuwa beeraha ee loo yaqaano Messi Ferguson. waxaana loo qabtay oo wasiirka beeraha aad ugu horeysay loo sameeyey tuulada gatiitalay wuxuu siiyay 1 cagaf wuxuu beeray intaasoo saacadood. tuulada gagaloolay wuxuu ku wareejiyay 1 cagaf intaasoo saacadood lagu beeray. geesta kale xukuumaddu waxay 9,000 oo qoys oo ku kala nool gobolada Maroodi Jeex, Saaxil, Togdheer, Awdal, Hawd, Daadmareer, Saraar, Salal, Sool iyo Sanaag ka caawisay 27,000 oo saacadood oo qodaal ah iyadoo isla markaana ay lacaga dhiirigelin gaarsiisay beeralayda gobolada Sanaag, Sool, Saraar, Togdheer iyo Saaxil. أنا مقعيقة وحلا يرادا نمع محمود موسى وحويان دقمدن ودقمدي مقالة عاد مركي وجوه رئيسي أنا وسارد وحا أي كوبلوضي إن أن ميجينو أو يجا أو أنا جي وسارد أو وضع صعنا أيها حكم ميجينك عنها مركا وحا إن توسن سيستم كي وحلقلس وبحلا لجينا مارمي لها عقفية ذا وجامع محمد يوسف وحنا نتاجنا بيرتي أنو أن تأن لها إلى أنت كسكس إلى هيبا محلو دوان كفايدي أنت ما أنت عن لحجوجه ولقيت intaan dhul qodayay intay maanta keentay deemay keenin bee awal laakiin fikradda cusub baan kuga faa'iidnay shaqadiina waan ku baranay anigu ilaa 5 sano 6 sano hore ma shaqayn wax soo saarkaan bilaabay. wasaaradda beeruhu waxay heshiis kobcinta midhaha la gashay hay'adda IFAD iyadoo ay si wada jir ah uga wada shaqaynayaan xarunta cilmi baarista ee Abuuriin si loo xidho biyaha roobabka ee sida tooska ah inoo dhaafa. waxa kale oo xukuumaddu ay mashruuc biyo iyo ciid joojina ka wada biyo dhaca dooxa bichi iyadoo uu qorshuhuna yahay in dhulkaasi looga faa'iideysto dhinaca wax soo saarka. waxaa socda tayeynta shinnida ama abuurka Somseed sidoo kale waxaa xarunta cilmi baarista Abuuriin ay cilmi baaris ku samaysay abuurka ama shinnida ay hay'aduhu u qaybiyaan beeralayda. xukuumaddu waxa ay fulisay sanadkan 2018 mashruuca la dagaalanka cayayaanka waxyeeleeya khudradda qaybaheeda kala duwan. si looga sii diyaar garoobo masiibooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqda waxay xukuumaddu ka hirgelisay halbeega roobka iyo hawada 50 goobood oo ku kala yaala dhammaanba gobolada dalkani Somaliland. waxaa la dhammaystiray xeerarka iyo siyaasadda ku saabsan beeraha iyo shinnida. xukuumaddu waxay xoogga saartay sidii wax looga qaban lahaa sixir bararka iyo sabaynta shilinka Somaliland. muddadii ay xukuumaddu jirtayna waxaa lagu guuleystay inaanu sarifku kor u dhaafin 10,000 oo shilin oo Somaliland ah halkii doolarba. banka dhexe oo arrintan u xil saaranina waxa uu diyaariyey sariflayaal ka diiwaan gashan banka dhexe oo lagu kormeero fulinta qiimaha banka dhexe dejiyey. geesta kale banka dhexe ee Somaliland waxa uu sanadkan 2018 curiyay 6 xeer oo kala ah xeerka baananka Banking Act, xeer cusub maydhista lacagaha xawaaladaha nidaamka lacag bixinta. waxa kale wax ka bedel lagu sameeyay xeerka bangiyada islaamiga ah iyo kuwa bangiyada kale. banka dhexe ee Somaliland waxa uu laanama branch cusub ka furtay madaarka Hargeysa. ujeedooyinka ugu muhiimsan ee laantan cusub loo furay waxa kamid ah 1 la socoshada dhaqdhaqaaqa lacagaha dalka ka dhoofa ama soo gala. 2 in dadka soo degaya loo fudaydiyo helitaanka iyo sarifka shilinka Somaliland.
baanka dhexe ee somalilan waxa uu sanadka 2018 sameeyey habka loo yaqaan e-banking habkan oo u ogolaanaya macaamiisha baanka dhexe inay ku kaydsan karaan kalana bixi karaan lacagtooda iyagoo jooga xafiisyadooda ama guryahooda habkan waxaa si fudud looga isticmaali doonaa telefoonada gacanta mobile banking waxaana si tijaaba loogu bilaabi doonaa shaqaalaha gobolka Maroodijeex dhamaadka sanadka 2019 haddii ay baydmo xukuumaddu waxay awoodda saartay horumarinta iyo kobcinta xoolaha iyo kalluumaysiga waxaana ay fulisay mashruuca ururinta xogta caafimaadka xoolaha si looga helo warbixin sugan oo ku saabsan xogta caafimaadka xoolaha ee dalka waxaa la qaaday olole ballaadhan oo xoolaha lagaga talaalayo cudurka sanbabka ololaha talaalkana waxaa laga fuliyey dhammaanba gobollada dalka waxaa la talaalay 3 milyan oo neef oo riya mashruucani waxa uu socday muddo 2 bilooda shaqada talaalka xoolaha waxaa barbar socday ololaha daaweynta xoolaha kaasi oo looga jeedo in lagu daweeyo xoolaha buka isla markaana xoolaha loogu sameeyo daryeelka daaweynta dulinka dagal fadhiga ee xoolaha awoodooda yareeya intii shaqadaasi daaweynta xooluhu ay socotay waxa la daweeyay xoolo tiradoodu ay ku dhaweyd 2,300,000 oo neef waxaa ka faa'iideystay 50,000 oo qoys xukuumaddu iyada oo kaashanaysa qaadhaanbixiyayaasha waxay dib u xoolayn u samaysay dadkii ku caydhoobay abaarihii dalka ka dhacay xoolayntaasi waxaa laga hirgeliyey gobollada awdal saaxil daadmadheedh iyo togdheer mar kale xukuumaddu iyada oo kaashanaysa hay-adda faw waxay u qaybisay dadkii xooluhu ka baxeen lacaga yaryar waxaana qoysas tiradoodu dhan tahay 4,120 qoys midkiiba la siiyey lacag dhan $75. si loo ilaaliyo caafimaadka xoolaha dalka ka dhoofaya oo ah lafdhabarta dhaqaalaha dalka waxa ay xukuumaddu sugtay fayaqabka 1,999,330 neef oo isugu jira lo geel iyo adhi oo ka dhoofay dekada berbera carafadiina dhaaftay waxaa dhismahooda la dhammaystiray 21 goobood oo loogu talagalay kalluunka iyo xoolaha waxaa sidoo kale la siiyey iskaashatooyinka kalluumaysiga doonyo ay ku soo jilaabtaan kalluunka oo tiradoodu dhan tahay 7 doonyood wax soo saarka kalluunka ee 2018 guud ahaan xaddiga kalluunka la soo dabay inta xoog la hayo ayaa ah sanadka 2018 in ka badan 21,000 oo tan Somaliland sanadii ay jirtay ama muddadii ay jirtay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi abid mashruuci u weynaa ayay ka qabatay bariga oo waliba degmada taariikhiga ee faca weyn ee Laas Qoray oo hore aan u yeelan qaboojiye ayay u samaysay qaboojiye aad iyo aad u weyn una qurux badan loo dhisay sidii qaboojiyaashii caalamiga ah Laas Qoray kaliya maaha mayd xiis meesha la dhaho shalcow waqdariye galweyte meesha la dhaho xamaas wax badan bay ka qabatay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga sidoo kale tiimam xanaanada xoolaheed oo talaal ku wadayaan baryahan baarkayay xukuumadda uu galwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxay awoodda saartay sidii loo sahmin lahaa xaddiga shidaal ee Somaliland ku jira xukuumadda oo heshiisyo kula jirtay shirkado kala duwan oo qaabilsan sahminta shidaalka waxaa bartamihii sanadkan soo gabagaboobay sahmintii shidaal ee ay shirkadda Raaggas ka waday gobolka Saaxil iyo qaybo ka mid ah gobolka Sanaag taasi oo ku fadhida masaafo dhan 800 oo kiiloomitir waxaana soo dhamaatay sahminta shidaalka ee qaybo ka mid ah gobollada Maroodijeex Sanaag iyo Togdheer oo ay samaysay shirkadda BGB oo ah shirkad laga leeyahay waddanka Shiinaha goobaha shirkadda Ganal Energy-na ay ka howlgashay waxa sahmin laga sameeyay masaafo dhan 3,500 oo kiiloomitir wasaaradda tamartu waxay ka howlgashay suuqgeynta xogta shidaal ee Somaliland
iyada oo laga qaybgelayo shirarka iyo bandhigyada caalamiga ah ee la xidhiidha arrimaha shidaalka oo ka kala dhacay waddamada imaaraadka carabta iyo koonfur afrika. howlaha sahaminta shidaalka ee gobollada waxaa berber socda olole wacyigelineed oo ku waajahan guud ahaan dadweynaha gaar ahaana bulshada deegaanka sahamintu ka socoto. waxaa kaloo ay xukuumaddu samaysay sahaan macdaneed laga fuliyey deegaanada dhagaxmadow, simoodi, garbada dar iyo goobo kale. waxaa sahamintani lagu sameeyey dahabka laga helay gobolka Sanaag, xaddigiisa iyo asalkiisa. xukuumaddu waxay dib u eegis ku samaysay xagga tarjumaadda af Soomaaliga sharciyada shidaalka ee xeerka sahaminta iyo soo saaridda shidaalka iyo xeerka dakhliga shidaalka. xukuumaddu iyadoo ka duulaysa yoolka qaran ku beegsanayo ee ah in la helo koronto jaban oo la wada awoodi karo, waxay daraasad ku samaysay degmooyinka 3 gobol ee Sool, Sanaag iyo Togdheer. deegaamadaasi oo ay ka mid ahaayeen Xudun, Taleex, Laascaanood, Buuhoodle, Maydh, Laasqoray iyo Dhahar, kuwaasi oo ay wasaaraddu ka fulinayso mashaariicda tamarta cusboonaata gaar ahaana tamarta ku shaqaysa qorraxda oo ay ka caawinayso xukuumadda hay-adda NIS Foundation oo ah sanduuqa deeq-bixinta Norway. xukuumadda Somaliland waxa ay diyaarisay buuggii ugu horreeyey ee la xidhiidha badqabka iyo qaybinta korontada. xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdi barnaamijkeeda ku waajahan dhinaca ganacsigu waa mid salka ku haya suuqa xorta ah iyo furfurnaanta baayac mushtari. si haddaba loo fududeeyo waxaa wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska oo ka wakiila xukuumaddu abuurtay xeerar iyo shuruuc waxna la dhammaystiray oo la ansixiyey, waxna dhammaadeen balse sugaya ansixin iyo kuwa gacanta lagu hayo. dalxiisku waxa uu ka mid yahay ilaha dhaqaale dalka, waxaana muhiim ah in loo diyaariyo dalxiisayaasha goobo dalxiiska ku fiican. haddaba iyada oo taasi laga duulayo waxaa la diiwaan geliyey goobaha iyo hoteelada ku habboon dalxiiska. wasaaraddan oo abuuray madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa loogu talagalay dhiirigelinta iyo kobcinta maalgashiga maxalliga iyo fududaynta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga. waxay safka hore kaga jirtay ballanqaadyadii xisbiga kulmiye, waana qorshaha fulintiisu keenayso in Somaliland noqoto meel dadkeedu ku naaloodaan nolol tayo leh iyo fursado aan xadidnayn. waxaa kaloo wasaaradda maalgashigu ay fududeysay mashaariic maalgelin oo ay ku baxayaan $8 milyan oo ah deymo la siinayo ganacsatada yaryar iyo kuwa heerka dhexe ah, iyadoo deymahaasina ay u dhaxeeyaan $5,000 ilaa $50,000. hay-adda dekedaha Somaliland iyada oo ka duulaysa fulinta barnaamijkii xisbiga kulmiye ee horumarinta dekedaha, waxyaabaha waaweyn ee u suurtagalay muddadii sanadkan 2018 waxaa ka mid ah iibinta taagboodka maraakiibta soo xidha oo casri ah, kaas oo ah mid awood u leh inuu soo jiido ama soo xidho maraakiibta xajmigoodu aadka u weyn yahay, iyada oo taagboodkan cusubi yahay 3,000 oo horsepower, halka kii hore ee dekadda berbera lahaydna uu ahaa 1,400 oo horsepower. waxaa la keenay dekadda berbera faynuusyada navigation aid oo ah hagayaasha badda oo gaadiidka badda siiya habeenkii tilmaamo cad oo u sheegaya dhulka xeebta ah, aaga khatarta ah, marinka saxda ah iyo wixii la mid ah. waxaa dhammaaday dhismo cusub oo 2 dabaq ah oo ka kooban 12 xafiis iyo 2 hool oo shirarka ah oo ay maalgelisay hay-adda dekedaha Somaliland. waxaa la dhagax dhigay dhismaha ballaadhinta iyo casriyeynta dekedda berbera oo ah 400 oo mitir container terminal oo ay maalgelinayso shirkadda DP World. gaadiidka dawladda oo aan habaysnayn islamarkaana macluumaadka laga hayay wahaa mid aan u kaydsanayn hab casriya ayay xukuumaddu ku samaysay diiwaangelin casriya oo lagu tiro koobay gaadiidka dawladda. sidoo kale waxay wasaaraddu hirgelisay sumadda gaadiidka ee cusub oo sugaysa xogta gaadiidka dadweynaha. Somaliland waxaa ku batay shilalka gaadiidka oo keena khasaare naf iyo maalba leh, taasi oo ay sababto aqoonta xirfadda wadida gaariga oo hooseysa awgeed. haddaba iyadoo laga duulayo
sidii loo yarayn lahaa shilalka waxay xukuumaddu garowsatay in la bedelo nidaamkii hore ee bixinta ruqsadda wadista gaadiidka guud ee dalka iyadoo la adkayn doono bixinta ruqsadda wadista gaadiidka. waxay wasaaraddu hirgelisay xeerar iyo siyaasad cusub oo ku wajahan amuurtaasi. 27 sano kadib waxaa lagu guulaystay in xukuumaddu furto xafiiska gaadiidka badda iyo howlaha maraakiibta. xafiiskan ayay mas-uuliyaddiisu noqon doontaa hubinta gaadiidka isticmaala badaheenna ee caalamiga ah, jiritaankooda, badqabkooda iyo ammaankooda, isagoo oo xafiiskani bixin doona ruqsadaha wadista gaadiidka badda iyo buugaagta lahaanshiyahooda ee gaadiidka badda dalkeenna. xukuumadda Soomaaliland waxay sanadkan dayactir ballaadhan iyo dib u habayn ku samaysay qaar ka mid ah jidadka waaweyn ee dalka. xukuumaddu waxa ay dhamaystirtay 50 kiiloomitir oo laami ah oo ka mid ah jidka Burco ilaa Ceeri Gaabo oo laga maalgeliyay qasnada dawladda. waxay xukuumaddu dayactirtay wadooyin kala duwan oo ku kala yaala gobolada dalka ee Soomaaliland kuwaasoo cabirkoodu dhan yahay 561 kiiloomitir marka la isu wada geeyo wadooyinkaasi inta la dhamaystiray dayactirkooda. madbacadda qaranka Soomaaliland sanadkan waxay awoodda saartay xoojinta casriyeynta xafidnaanta sirta iyo xogaha dukumentiyada loo daabaco dawladda. waxa kale oo dib u habayn iyo ballaadhin lagu sameeyey xafiiska naqshadaynta iyo daabacadaha casriga waxaana si feejignaan dheeryahay ay ku jirto loo daabacay dukumentiyada kale ah fiisayaasha, jeegaga baanka, buugga wadayaasha gaadiidka, buugga dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo kuwa kale. xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo si ay u gaadho himilada u qorshaysan ee horumarinta adeegyada isgaarsiinta dawladda iyo dalkaba. wasaaradda u qaabilsan hawshan xukuumaddu waxay hirgelisay adeegga isku xidhka maqal iyo muuqaal ah oo ay ku wada xidhiiri karaan wasaaradaha dalka, lagana hirgeliyey wasaaradaha isgaadhsiinta iyo tiknoolajiyadda, ganacsiga, arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo madaxtooyada. waxa kale oo wasaaradda boosuhu hirgelisay adeegga boosaha ee laamaha dawladda, waxaanay ku dhiiratay wasaaraddu inay keento qalab cusub oo lagu ogaanayo dakhliga shirkadaha isgaadhsiinta iyadoo oo si hufan looga qaadi doono cashuuraha sannadlaha ah ee looga baahan yahay. waxaa kale oo ay wasaaraddu keentay qalabka hubinta hirarka iyo samaynta jadwalka hirarka ee Soomaaliland, kaasi oo ah mid aad loogu baahan yahay. qalabkani waxa uu ogaanayaa isdhexgalka ku yimaada hirarka shirkadaha, waxaanu si fudud u kala saari doonaa cabashooyinka ka yimaada arrintaasi. xukuumaddu waxa ay keentay markii ugu horreysay qalab loogu talagalay hubinta shucaaca ka soo baxa qalabka isgaadhsiinta ee dul saaran taawarada shirkaduhu ka taagaan gudaha magaalooyinka. sidoo kale waxaa la sameeyey xeerar iyo foomam cusub oo la xidhiidha isgaadhsiinta. xukuumaddu waxa ay ku guulaysatay inay gacanta dawladda dib ugu soo celiso ilo dhaqaale oo ku jiray gacanta ganacsadayaal iyo shakhsiyaad gaar ah sida haamaha kaydka shidaalka, adeegyada amniga iyo barxadda gaadiidka la dhigtay madaarka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa, daabacadda baasaboorka, liisamada gaadiidka iyo warqadda cashuurta wadamarista iyo wixii la mid ah.